مهيجي وحوض ونديني قوانك حكومة فرمادية الشيخ شريف هجامين أيان نقادني حكومة قوان كذا قادني wuxuu ahaa wadani jecel nabadda iyo horumarka dalkiisa Allah u naxariistay xildhibaan Suldaan Khaliif muumin tooxo oo maanta ku geeriyooday magaalada Muqdisho ayaa ahaa xildhibaan iyo wasiiru dawlaha wasaaradda cadaaladda dawladda Hirshabeelle waana mas'uulkii ugu horeeyay ee xil hayay u dhinta caabuqa coronavirus shakhsiyadiisa intaan ka aqaano waxa uu ahaa oday Soomaaliyeed jecel nabadda iyo horumarka dalka inta aan deganaa magaalada London waxaan ku arki jiray munaasabadaha ay jaaliyadaha ku qabsadaan dalkaasi Ingiriiska mar walba waxa uu ka hadli jiray haddii warbaahiyaha la siiyo nabadda iyo horumarka dalka sidii loo soo celin lahaa caawa halkan waxa la isugu yimid oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan isugu timid taasoo ummadda Soomaaliyeed ay ka muuqatay caawa in laga baxay بربلانكي لبعتن كسنة كوها بسدي ومدة صوماليات أو أيوب مقطع إن لو جود بي قرن جعيل دولة جعيل من نمو إن لو جود بي برامجka dood wadaag ee Universal TV wadaadihin jiray Allah u naxariistay wariye Cawl Daahir ayaa Suldaan Khaliif mar walba ka qayb gali jiray isagoo kaalinta nabadda iyo horumarka dalka kaga hadli jiray sidii loo soo celin lahaa doodanna waxay ahayd tii ugu dambeysay ee uu ka qayb galay koorintuusan dalka dib ugu soo noqon 10 sano ka hor ayaan Suldaan Khaliif waxaan magaalada London ku weydiiyay haddii dalka nabad la helo inuu dib u laaban doono iyo in kale bismillaahir rahmaanir rahiim Baafo waxaan horta marka hore runtii aan ku faraxsanahay su'aashaadii ahayd haddii Soomaaliya nabad noqoto maxaa soo bilahayd runtii waxaan Ilaahay ka baryaynaa horta marka hore in Soomaaliya Ilaahay nabad nooga dhigo maxaa yeelay nabaddu waa waxaan waynay oo waxaan doonaynaa way Soomaaliya ayadoo nabadana waanu joogi jirnay maantana dhibaatada ka jirta cid walba way ogtahay Soomaaliya hadday nabad noqoto haddaan toos u abaaro su'aashaadii ahayd Soomaaliya hadday nabad noqoto maxaa soo bilahayd waxaan soo bilahay horta marka ugu horeysa nafsadayda u baahan ba inaan bal dalkii dib ugu noqdo oo aniga waxaan ahay aabbo xaas iyo caruur leh caruurtayda iyo xaaskayga iyo intii aan ka naxayaba maba joognana waxaan dib ugu noqon lahayn waddankayaga hadduu nabad ahaa lahay sidoo kale waxa xil naga saaran yahay ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo dhibaatadu ay qurbaha ku dilatay waxa soo dhan intooda badan hadii nabad jir lahayd waxay ku noqon lahaayeen dalka waxaan ogsoonnahay qurbaha dhibaatada lagala kulmay waxaad ogtihiin ogsoontaha Baafo in kumayaal kun oo dhalinyaro ah oo Soomaaliya xabsiyada isaga jireen waxaad ogtihiin in qoysas fara badan oo waddankan ayaga oo dhisan soo galay inay ku burbureen haddii Soomaaliya nabad ahaa lahaydna waxa soo dhan may dhaceen kuwa badan oo maanta xabsiyada ku jira ayaa dib loogu celin lahay dalkoodii kuwa qoysas badan oo maanta dhibaato ay ka haysato qurbaha qaabka loogu nool yahay oo burbur qoys oo soo gaaray ayaa intooda badan aysan la kulmeen oo dib ugu noqon lahayn dalkoodii haddii maanta in yar oo nabada Soomaaliya laga helo qofka ugu horeeya ee u hayaana noqonaya anigu qofka ugu horeeya oo u hayaana noqonaya ubadkeygana meeshaasaan u hayaaminaya iyo qoyskeyga dabcan waa uu soo laabtay isagoo ka qayb galay geedi socodka nabadda kana mid noqday xildhibaanada Hirshabeelle Allah u naxariistay maanta ayaa Rabbi xamar ku oofsaday Ibrahim Umar Baafe wararka Somali TV Australia magaalada Melbourne